السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada isma channel insha Allah maanta waxaynu halkan uga hadli doonaa mowduuc ku saabsan anshaxa caafimaadka ama wax Ingiriiska lagu dhaho afka qalaad medical ethics. Kahor intaan bilaabin muuqaalka fadlan haddii aad horey noola joogtay like taaniga ilaa si muuqaalka dad badan ay uga faa'iideystaan. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe-ka nagu caawi insha Allah. mowduucan maanta aan ka hadlayno wuxuu ku saabsan yahay anshaxa caafimaadka ama waxa la yaqaan medical ethics. qof kasta oo ah dhakhtar ama xirfad shaqaale buu mowduucan aad u khuseeya ama ku dhex jira goobaha caafimaadka haddii ay noqon lahayd isbitaalada, farmashiyaasha, aduu xarun walbo adeeg caafimaad laga fuliyo bay khuseysaa. marka qof kasta oo xirfadle caafimaad ah waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo xiriirka uu la leeyahay ama xeerarka uu leeyahay caafimaadka si looga fogaado in la dhibaateeyo bukaanka ama dhibaato ay dhex marto xirfadlaha caafimaad iyo bukaanka. haddaba waxaa jira 4 xeer oo muhiim tahay inuu ilaaliyo qof kasta oo ah xirfadle caafimaad ama shaqaale caafimaad. mida koowaad waxa loo yaqaano autonomy. bukaanka ama patientiga ama qofka la socda oo in loo yaqaano informed consent oo wakiilka ka ah waxa uu xaq u leeyahay inuu wax ka ogaado go'aanada caafimaadka ku saabsan fikir ama talo, waana inuu og yahay faa'iidada iyo khatarta ka imaan karta daawada uu qaadanayo ama qaliinka lagu sameynayo. dhakhtarka ama xirfadlaha caafimaad ayaa laga rabaa inuu fahansiiyo. qodobkan wuxuu ku saabsan yahay masalan qof bukaan ah baa isbitaal keentay, marka dhakhtarku waa in qofka bukaanka ah iyo qofka la socda ee weheliya uu la socodsiiyaa xanuunka qofkan laga helay, daawada la siinayo, xaaladiisa sidii ay tahay. qof kasta oo isbitaal imaada oo qof xanuunsan la socda qofka xanuunsan xaq buu u leeyahay. dhakhtarkana waajib bay ku tahay in qofkan xanuunsan qofka wada uu u sheego daawada uu siinayo, haddii uu qaliin galayo qaliinka lagu sameynayo khatarta ka imaan karta, haddii la baaray oo xanuun laga helay iyo xanuunka laga helay. waad fahanteen baa u malaynayaa. qodobka labaad waxaa weeye waxa loo yaqaano justice ama adeega caafimaadka ee la siinayo bukaanka waa inuu ahaadaa mid cadaalad ku saleysan. si siman waa inay bukaanada adeega caafimaad ay u helaan qof walba oo bukaan oo dhakhtarkaas uu daweyn iyadoo aan loo eegeyn midabka, jinsiga ama qaraabo ama diinta oo kale. marka waa in qof walba bukaana oo aad ku imaada, rag iyo dumar wuxuu noqdo, gaal iyo muslim, lab iyo dhadig, qof madow iyo qof cad, qof qaraabatiin iyo qof aanan ahayn, qof walba inaad u daweysaa si caafimaad aad ugu adeegtaa. qodobka saddexaad ama xeerka saddexaad waxa loo yaqaano beneficiency. markasta ku dadaal inaad sameyso bukaanka waxa uu wanaagsan caafimaadkiisa. si taasi loo helo, dhakhtarka ama xirfadlaha caafimaad waxaa laga rabaa inuu ahaado mid update ah, lana socdo waxa isbedelaya ee caafimaad ku saabsan. masalan tusaale ahaan markii aad dhakhtar tahay waa inaad la socon kartaa isbedelada xagga daawooyinka ku imaanaya, sababtoo cilmiga caafimaadka waxaa jirta waxa la yiraahdo guidelines ama protocols ama hagayaal maalin walba, saacad walba, second walba lagu soo daro culumta caafimaadka oo ku saabsan in daawooyinkii hore waa la bedelaa, marmar waxaa la bedelaa dooska, marmar waxaa la bedelayaa waxa way ii sheeg daawooyinkii xanuunada qaar lagu daweyn jiray. marka dhakhtarku waa inuu ahaadaa dhakhtar mar walba update ah oo la socon kara daawooyinka casrigan iyo waqtigan la joogo dadka lagu daweeyo, uusan ahaan dhakhtar isticmaalaya daawo 5 sano, 4 sano, 6 sano, 10 sano ka hor la isticmaali jiray. inuu ahaa dhakhtar mar walba la socda waxyaabaha kusoo kordha daawooyinka iyo isbedelada ku dhacaya xagga daweynta bukaanka, xagga daawada.
waa inuu wax badan waa inuu aqriyaa si uu u horumariyo aqoontiisa. tababaro badan waa inuu qaataa. yacni qofka dhakhtarka ah waa inuu akhris badan sameeya oo maalin walba wixii soo kordho oo lagu soo daro badweynta caafimaadka uu ka warqabi karaa. daawooyinka cusub oo lagu soo daro kuwii hore oo la tuuro inuu ka warqabi karaa. waa inuu markasta qaataa tababaro joogto ah si uu u noqdo dhakhtar active ah oo update ah oo la socda wax isbedeli iyo xaaladda sida ay marayso. qodobka afraad waxaa weeye waxa loo yaqaano non maleficiency. haddii aadan bukaanka wax fiican u samayn karin ha uga darin ee u gudbi ama la tasho qofkaaga aqoon badan. yacni qodobkani waa qodob aada u muhiim ah. wuxuuna ka hadlayaa masalan cilmiga caafimaadka waa cilmi aada u baaxad weyn. waxaa laga yaabaa dhakhtarka aqoontiisu maaragtay inay maaragtay aysan meelaha qaar uusan waxaa dhici karta ku fiicnayn. dhakhaatiirtu iyagoo dhakhtar isla ah bay haddana kale aqoon badan yihiin. marka cilmiguna waa cilmiga caafimaadkan waa bad camal oo kale, waa iska badweyn weeye, waa iska waxa weeye iishay cilmi maalin walba wax kusoo kordhayaan weeye, maalin walba wax laga reebayo. marka haddii uu bukaan ku imaado oo bukaankan xaaladiisa aad shaki kaa galo ama dawadii aad u qor lahayd uu shaki kaa galo ama xanuunka uu qabo uu shaki kaa galo, wax aadan hubin ha ku daaweyn, xanuun aadan hubin ha ku sheegin. qof kale oo kaaga cilmi badan oo aad isleedahay alleele qofkaasi wuu kaaga badiyaa oo uu kaaga xogaalsan yahay, ka hubso, la tasho, lana kaasho insha allah. ugu dambeyn, dhakhtar kasta ama shaqaale kastoo caafimaad ama xirfadle kastoo caafimaad waa inuu markasta ku dadaala inuu qanciyo bukaanka xanuunsan ee uu raadsaday adeega caafimaadka. yacni bukaanka xanuunsan ee kuu imaaday ee kuu soo raadsaday inaad wax la qabatid oo xanuunkaas ilaahay baa xanuunka maaragta keena, caafimaadkana baxsha. ilaahay wax kasta bay gacantiisa ku jiraan. ilaahay ka sokow qofkan bukaanka ah aduu kuusoo doontay kaalmo iyo gargaar iyo waxawey caawinaad, waa inaad qofkii si fiican u daweysaa, si niyadle oo daacad loogu shaqaysaa. mas-uuliyadna way kaa saaran tahay qofkaasi caawinaada kuusoo doontay oo aad dhakhtar ahaan kuugu imaaday. waa inaad si nadiifa oo dareen leh oo maaragta naxariis ugu adeegtaa. qur-aankana ilaahay wuxuu ku dhahay caza wajalla, waman axyaahaa fakaanamaa axya annaasa jamiica. qofkii hal qof nooleeya waxay ka mid tahay isagoo dadka oo dhan badbaadiyey, ama dhakhtarkii ama qofkii hal qof badbaadiya waxay ka mid tahay isagoo dadkii oo dhan badbaadiyey. aad baa umahadsantihiin saaxiibayaal, muuqaalkeeni intaasuu ku egyahay. badan haddii aad ka heshay like-ta noo saar, haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin, haddii aad muuqaalkan ka heshayna la wadaag asxaabtaada. haddii aad wax su-aala aadna qabtid oo ku saabsan mawduucana fadlan qaybta commentiga noogu reeb. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.